أنا أبشر محمد عبد ninkan hadda meesha yaalana aan la joogo dibkana maalinka khamiistii taariikh 13 oo ku dhacay dhagaxleyna aan ka soo qaaday hay'adana ay soo qaaday haddana gaaris aan ku suganahay maanta kulli dibkiisa waad aragtaan baan u maleyn kulli muslimiin dhammaan meel aad joogtaan marka nin alla ninkii muslim oo ma aragtay kan xay wuxuu u qaban kara inuu u qabto ayaan ka codsanayaa kan oo walaalkay ayaa dhibaato ku dhacday taariikh 13 bishan hadda aan ku jirno ilaa maantana cusbitaal buu ku sugan yahay dibkanna wuxuu ahaa dib xaaskiisa ka imaaday aad buu u dhib qabaa hadda cusbitaal buu joogaa laakiin wuxuu u baahan yahay cusbitaalo kale oo waaweyn marka waxa waaye baan jirkiisa dhan wuu wada gubtay wuxuu u baahan yahay kaalmo iyo walaal iyo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in ayna kaalmayaan anigoo magacayga marka hore bilaabo waxaan ahay nin la yiraahdo Dr. Qaar waxaan idin ka codsanaynaa walaalayaalow ninkan dhibaato ku dhacday dhibaato hadda ma aragtay family oo xalin karana ma aho muslimiinta inuu cawaansanaynaa dal iyo dibadba ninkii naxaya oo walaal ama muslim oo arko ninkan dhibaatada hayso wuu danqanaya waxaan rabnaa walaalayaal muslimiinta inaad noo danqatiin oodna kaalmaysiin oo ninkan dhibaataysan walaalkiina aad wax u qabatiin oo aan daweyno cusbitaal meeshan hadda uu joogo ka weyn aan geeyno laakiin waxa waaye waan idan baryeynaa gacanta muslimiinta wax la baryelay ilaahay baa wax la baryelay muslimiinta aan baryeynaa muslimiinta inay gacan noo fidiyaan baan rabnaa tii ilaahay iyo tan muslimiinta waan u baahanahay waa sadaqayso walaalkaana uu ku bogsanayaa ma aragtay dhibaatadana waa dhibaato weyn waxaan rabnaa in wax nala la qabto gaal iyo muslimo ninkii sawirkan arkaayo codkaygana maqlaayo waxaan idin ka rabnaa walaalayaal inaad na kaalmaysiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh